حبي قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع فضلا ولا سبسكرايب للقناة كمبانيلك كدوفو سي مقالك سوقل زادنا فضلا صاحب كمن نقو ويسكينا من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نبات دمانتي وبركلان دنبه يبرنامج كيني هنتجوشة إن شاء الله إن بدن وين سويني وحنرجين دونا إن موقعه تحنيه أسبوع النوبح دونان وتركي لبعض برنامج كيني هنتجوشة كسردو موقع أصل طاولة كل دونة نبت كلية كتعدي أنت وحنقوة تير يخطب مهمة أو أنكو قارنو guusheena maanta waxaanu marti u nahay ogaanshiyaha iyo ka falcelinta iyo falanqaynta shan qodob oo nolosha inay dhaxalsinaysa nolol libina oo guula. qodobkeena koowaad waxa uu noqon doonaa hadafku waa bartilmaameed iyo hiigsi aad nolosha ka leedahay. hadaf la'aan waa nolol la'aan. hiigsi tagoon iyo bartilmaameed iyo rabitaan xoogan waxayna dhaxalsiinaysaa nolol libin iyo guul ah. qodobkeena labaad daawada waxa weeye isku kalsoonaan. kalsoonidu ma aha isla weyni iyo isla qabweyni dadka kale ah laakiin waa kalsoonaanta qabashada iyo ujeedada ka gaadhidaada noloshaada iyo hadafkaaga iyo mustaqbalkaaga kan fog iyo ka dhowba. qodobka saddexaad waxa uu noqon doonaa daawada rajadu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dhaxalsinaysa libin waarta dunia iyo aakhirada. rajaynta wanaaga iyo qabashada wanaagsan waxayna dhaxalsiin doontaa nolol libin oo taaba gasha. baltanka hashkadeynta iyo kalsooni darrada iyo dareenka liita waa bilowga guuldaradeenna. dib walba beef ayaa ka dambaysa culays walbana fudud ayaa ka dambeeya. waad ku fi marar badan laakiin waxa loo baahan yahay inaad kacdo oo aad ka istaagto oo aad qabato waxyaabaha kugu waajibka si aad u heshid natiijo tii hore ka duwan. waa inaad qabataa ficilo tii hore ka gedisan. qodobkeena afaraad waxa uu noqon doonaa aqoontu waa tiirka lafdhabar u ah guusheena maalmeed bileed iyo sanadeed. saadaradeed aqoontu waa miisaanka uu qofku ku kala saaro saxnaanta qaladka cudurka caafimaadka wanaaga xumaanta. waxaasoo dhan qofku waxa ku kala saara waxa weeye aqoontu waa miisaan uu qofku ku miisaamo colaada cilmiga caqliga iyo maangaabnimada. wanaaga iyo rajaynta natiijasan iyo barashada iyo kobcinta maskaxdeena ayaana dhaxalsiinaysa guusha iyo libinta aynu u helanahay hadda iyo hadoorba. qodobkeena shanaad iyo tiirkeena shanaad daawade waxa uu noqon doonaa maaraynta waqtigaaga. waxaad maanta hanti adiga ku ah waa waqtigaasood maarayso waxaad ku hantiyaysaa guushaada. waqtigaaga oo maaraysa waa noloshaada oo aad maaraysay. sidoo kale daawada waa mustaqbalkaaga oo aad maaraysay. diidida hawlaha aan ku muhiimka ahayn iyo oraanshiyaha maya ma qaban kara hawlahaasi iyo dejinta qorsheynta maalintaada usbuucaaga bishaada ayaa ina dhaxalsiinaysa inaan maarayno hantideena oo ah waqtigeena. taasi waxay dhaxalsiinaysaa inaan markaasi hantino guusheena iyo nal inoo ifin doona maanta mugdiga aynu ku jirno. daawada fariintaan kaaga tagayaa waxa weeye isku kalsoonow
hadaf yeelo waqtigaaga maaree rajee wanaag aqoontaada kobci waa 5 wado ee ina geynaya aqalka guusha inaguna daraya qoyska guusha waanigu Cabdiraxmaan Saleebaana oo kule guuldoone guushii waa ku timiday maanta waa markaagii midhirkan waa midhirkaagii dadka haddaad u hambalyeyn jirtay maanta anigaa kule hambaliyo daawade waxaan kaaga tegayaa hal tilmaan oo ah qofka loo abuuray dunidan inuu guulaysto waa qofkaad subax kasta aad ku dhex aragtid muraayada waana adiga nabadgeliyo waxaan kaaga tegayaa hadduu muuqaalkan ku anfacay fadlan la wadaag asxaabtaada wixii falcelina hoosta noogu reeb waa Cabdiraxmaan Saleebaan oo kule faafi wanaaga